السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. Meeshan waa ahay trading qofka video duuyana waa Axmed ahay. Soo dhawaada saaxiibayaal mar labaad insha Allah binal cream. Caawa waxaa lagu duubi doonaa video aad u kooban, video aad muhiim u ah. Videogaas oo noqon doono video dhalinyarada wax badan aad iyo aad uga faa'iidi doonto. Caawa waxaa ka hadli doono wuxuu noqonayaa waa istiraatiijiyad horta insha Allah ay isticmaalno waa smart money concept insha Allah entry qofka hadduu maaragta practice gareeyo oo ku daro mindset management iyo uu ku daro maaragta qofkaasi uu meel fiican mataqaana ishaan lacag fiican ka samayn karo oo tradingkiisana uu ku horumarin karo. Marka saaxiibayaal insha Allah hadal yaan ku daalin soo dhawaada mar labaad insha Allah. Istiraatiijiyada horta istiraatiijiyadan laba wax waa waqti muhiim ah. Istiraatiijiyadan waa smart money laakiin qaabka entry loo qaadanayo iyo waxyaalaha loo marayo entry intaada qaadan waxyaalo la soo maraa jirto. Entry qofku inuu iska qaato maaha. Entry wax loo maraa jirto iyo wado loo maro iyo sabab entry loo qaato. Okay, qofku horta intuu entry ka fikirin waa inuu ka fikiraa marka u horeyso laba qodob oo ka horeyso. Labada qodob waxa weeye qofku marka koowaad inuu ka fikiro trend wax la dhaho trendiga suuqu horta ma suuq uptrend ba mise suuqaani waa suuq downtrend ku socdo oo suuqaani downtrend ku socdaayo siiqad wuxuu ku socdaa ah inuu sameynayo low 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 high low 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 high low low hama saamuu sameynayo wuxuu sameynayaa high 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 low high 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 low high high qaabka markuu socdana waa uptrend markuu downtrend ku socdana dee high low high high low markuu sameynayo low high low low. Okay, marka waxa koowaad oo u muhiimka ah waxa weeye qofku horta inuu garan karo suuqan uptrend ba mise waa downtrend. Waxaa jeclahay waxaan ka sheekeyn in dad badan fahansan yihiin laakiin halkan laakiin baa ku jirto dhalinyaro badan oo aad u badan baa waxa arka oo meeshaan iskaga khaldan tahay. Qof waxaan uu garanayaa way la fududaha asagii macno weyn agtiisa kalama aha laakiin wax macno weyn sameynaya way trading inaad fahantid. Trend is your friend bidhaan waxay kaloo dhahaan trade with a trend. Marka anaga marka saajida hada laba entry baa ka isticmaala saajida laba entry laba qaab baa entry u qaata labada qaab insha Allah waxa caawa intuu doono waa entry qaybtiisa koowaad oo ah maxaa ahaa ishaan inaa suuqan trendiga marka horta inaa marka hore trendiga raaco qodob kalena waa trendiga si kale uga hor imaan insha Allah kaasna video kale ka duuya. Marka saaxiibayaal hadal yaan ku daalin. Marka waxa koowaad oo ogaado in trend waxyaalaha labaad oo suuq qaadano maxay waa supply and demand zone. Waa maxay supply zone waa maxay demand zone waqti ku dilmayno dadka inta badan qof waa yaqaanaan. Marka supply zone maxaa ku dooranaya demand zone maxaa ku dooranaya suuqa supply zone ka anigu qaato afar qodob baa ku doortaa insha Allah binal cream video gaar ah ka soo duubi doona insha Allah iyagana video ayaga u khaas ah baa insha Allah ka duubi doona mid kasta oo si gaar ah u dul istaago insha Allah binal cream tusaaleyaalna ka bixiyo mid kasta oo kamid ah. Waa maxay waa ka koowaad oo ah in supply-ga ay isticmaalayo horta suuq baa wuxuu ku socday trendiga markuu nooca ku socday dhaqaaqa jabiyey muxuu ahaa dhaqaaqan oo dhaqaaqa jabiyey soo ma ahan lowgan halkan supply zone ku jiro aniga muhiim u yahay markuu suuq kusoo noqdo waa u baahanaa kow qodobkaas waa qodob waa break inuu sameeyo break structure inuu break gareeyo ama structure uu jabiyo. Okay, qodobka labaad muxuu noqonayaa marka qodobka labaad waxa weeye sweeps liquidity inuu liquidity uu cuno. Okay, liquidity u cunayaa liquidity ka xagga saan oo kale suuqan wuxuu sameystay liquidity uu sameystay uu hoos booga daatay uu ku soo noqday liquidity waa la cunaa. Liquidity markii la cunay suuqan wuxuu jabsaday lowgii uu jabsaday markuu lowgii jabsaday suuqaani daatay uu ku soo noqdo maalinta uu ku soo noqdo meeshaan la dhaho supply zone kan waa iga muhiimsan yahay supply zonada kale waana aydan u fiirsadaa. Saddexaad oo ah flips demand oo ah inuu demand uu jabiyo yacni maxay suuqan waa suuqan ku socday uptrendka ku socday demandkii u dambeysay buu cunaa. So wuxuu sameystay supply cusub buu sameystay wuu jabsaday supply-ga cusub oo dhaqaaqiisu uu jabsaday demandkan
كان iyo kan waa almost waa isku mid laakiin maxay kala duwan yihiin midna suuqii dhinaciisii u socdaa midna suuqii uu ka hor imaanaya way taa waa inaad kala fahantaa marka marka maalintu ku soo noqdo way iga duwan tahay maalmaha kale okay marka waxa ka wadaa way iga duwan tahay sablaayada kale okay marka inta waa fahanaa jecla waxa ii soo haray ka afraad u dambayso oo ahaa inducement oo ah suuqaan almost liquidity iyo inducement waa same concept waxa ma kala duwano inducement waa somehow mataqaana waa liquidity mataqaana oo kala way waa somehow mataqaana waa liquidity iyo qaabka laga dhigo magac kale lagu sameeyo marka waa same liquidity wuxuu boqol qaab inoo noqdo insha Allah liquidity iyo qaabka mataqaana ayagana video gaar ah ka duubi doona insha Allah intaana waa iyadoo ah dhammaan iyadoo ah yaraa noqdo saaxiib insha Allah video gana dheereeyo ma u baahni video aad u kooban oo dadku wax ka faa'iidi karaan insha Allah wixii kale oo maaragtay u baahan in laga sii jawaabo insha Allah inta marka ogaado suuqu markuu meeshan igu soo noqdo maxaa sameynayaaba haddana ii taalo suuqu markuu meeshan kugu soo noqdo waxaa sugaysaa intaana sugaysaa maxaa sugayaa suuqu maalintu halkan igu soo noqdo meelahan sablayadan igu soo noqdo intaana sugayaa sablayga markuu soo noqdo waa inaa helaa inner structure dhaqaaqan low time frame ka tago mataqaana meeshii change of character kan low time frame kiisa meeshii iska bedelay inta helo kabacdi markuu igu soo noqdo meesha entry ka qaato intaana si fahmay umaleynaya inta xagana waa bilcagsigii insha Allah qofku tahadu fahmatan uu fahmaya okay marka saaxiibayaal waxaan umaleynaya structure ka suuqa meesha ka fiirinayna waa fiirina suuqan uptrend mise downtrend suuqan supply mutual mise demand ka awood leh waa inaa fiiriya waa waxa ugu muhiimsan suuqa structure ka waa inaa fiiriya kabacdina waxaa fiirinaya suuqan ma supply zone supply ma wax ku socdaa siiqad ah inuu supply uu ixtiraamayo mise wuxuu ku socdaa siiqad ah inuu demand ka ixtiraamayo kabacdi markaa soo ogaado demand ka maxaa ku dooranaya waa inaa dan ogaada kabacdi demand ka waxa ku dooranayo iyo waxaan ku dooranay marka ogaado kabacdi waxa wixii intee soo qaadanaya insha Allah intaas in aad iyo aad loo fahmo waa jeclahay marka saaxiibayaal lacagtan baa rabaa inaan intee ka raadiyo okay meesha ay hadda maraysaa intee ka raadinaya way jiran tahay beerka isticmaalayo waa euro bactisin badan baa ku sameeya inta badan qaab ay u shaqeysaa jirto oo qofka yaqaan lacagta euro inta badan ma sameyso waxaa la dhaho ma sameyso inay suuqan sida hadda saacadii meeshan in area kugu soo noqoto lagama sugo inta badan waxay sameysaa meelahan dhaxo kale ku noqotaa way jibsaa qaab noocaas oo kale u dhaqantaa marka qofkii practice gareeyay uu dareemi karaa uuna yaqaanaa marka lacagtan inta u dambeyso maxay ku socotaa lacagtan wuxuu ku socdaa lacagtan saa ujeedno waxay ku socotaa brick oo uptrend ah halkan waxa weeyaan waa meesha ka rabo suuqa in taqaanaa inuu ii jabiyo oo uptrendka hadduu kusii soconayo okay laakiin weli lacagtani weli fursad maxaa ka raadinaya sababtoo ah disida meesha u baahanahay in suuqan uu jabiyo si fursad seel ah oo uga raadiyo fursad seel ah meelahan waa ka raadin karaa laakiin meeshan uu hadda marayo wax fursad seel ah oo ka bannaan totally ma jirto okay lacagtan horta waxa koowaad oo ah halkan waxa le demand zone baa iga muuqdo suuqaana sida ka muuqato wuxuu aad iyo aad u ixtiraamayaa sa hadda u jeedno dhimaanada aad u ixtiraamaya waa suuq uptrend ku socdo talabaadna dhimaanidsku aad u ixtiraamaya that means suuqan fursad waxa ka raadinaya buy ah okay fursadda buy ah sababta uga raadinaya waa suuqan waa suuq uptrend ah kow talabaadna waa inta badan wuxuu suuqan saa ujeedaan wuxuu ixtiraamaya demand zonesku aad u ixtiraamaya okay marka saaxiibayaal halkan waa for hour structure baa jooga suuqan waxaa haystaa demand zone aad u qurux badan baa haystaa iyo calaamadii demand zone igu calaamadii okay demand zone qodobka labaad oo u baahanahay waxa weeye iyadana demand zonekan maxaa ku doorta inuu demand zonada kale uga duwan maxaa ku doorta waxa weeye horta koowaad oo aho demand zonekan wuxuu leeyahay horta break of structure buu sameeyey number 1 number 2 na waxay ii samaysay waxa weeye suuqan
intuu yimaaday muxuu intuu yimaaday katay wuxuu cunay liquidity baa halkan laga cunay laakiin halkaana muxuu ii sameeyey liquidity kale oo inducement ah so muxuu ii leeyahay inducement wuu ii leeyahay okay waa qodob aad muhiim ayadana ah okay مرة إني شيء liquidity inducement يعني same yihiin wax u kala duwan yihiin dad baa dhina inducement liquidity waa xukun kala duwan isku mid kana isku mid oo isticmaala dadku si kala duwan u isticmaalaan waa laga yaabaa marka halka marka intaas ay heshid suuqan laakiin muxuu ku socdaa low time frame waa inaad tagaa low time frame-ka wuxuu ku socdaa haddaa fiirisid low time frame-ka wuxuu ku socdaa suuqan suuq downtrend ku socdaa okay muxuu ku socdaa waa iri suuq downtrend caadi ah ku socda wey okay maxaa halkaa ka dhacay marka 15 minute entry meesha ka qaadan waa 15 minute entry 15 minute entry maxaa ka haystaa halkan maxaa ka haystaa maxaa ka haystaa waa meeshaan ka sugayo change of character-ka halkan waxay noqonaysaa change of character meesha taas ka waro okay waxaa kaloo u baahanahay waxa weeye waxaa kaloo u baahanahay inaan helo dhaqaaqan maxjabsaday meesha uu kasoo dhaaqay waxa weeyaan kanalkan meeshu kasoo bilaabmay dalaaskan laba kanalkaas waa ma jabsan area iska dheh kanalkaas wuxuu yahay entry kanalkayga meesha entry ka sugaa maxay waa meesha suuqan intuu halkaa maray marka ku mashquulaya may faraha ka qaadaya suuqa wuxuu asoo sameynaya u sameeyo suuqa waa inaad meel ka sugtaa waa inaad dhahdaa suuqaasi markuu waxaa sameeyo kabacdi ayaa entry ka qaadanaya waa inaad dhahdaa laakiin suuqan hadda fiiri muxuu sameeyey sanku noo soo saaray okay kaw sii qaad low time frame hataa inducement ahaan waa u isticmaali karaa laga yaaba in suuqan igu soo noqdo inuu igu soo noqon waa macquul wan hawarka ita waqti soo waqti badan nooga babun okay suuqan marka hadduu meeshan hadda entrygaas isoo noqon ma dhibayaa marka hore dhigano marka laba qaab baa u qaadan karaa retracementigaas inaad 50% ka qaato inaa labadoo ana optionka iskale laakiin anu marka 20 bib 20 bib iska dheh waxaa ka sugayaan waa maxay waa 4 hour high waa meesha uu 4 high-ga u sareeyay oo 4 hour ku tago oo ah meeshaan saa managementigii u sameynay sidii insha allah iyaduna waa barnaamij kale okay wuu ii furay tradekaas almost managementigii insha allah taa waa barnaamij kale suuqaas maxaa sugayaa qorshaha sugayaa maxaa waa inuu ii jabsado inuu haya ii jabsado weeyaan waxaa sugayo okay one hourka markaa joogno marka maxaa dhacay one hourka speed uu change oo waxaa soo uptrend suuq uptrend kusoo afar hourku uptrend taas fursad maxay ii siinaysaa markaasna fursad waxay ii siinaysaa suuqan inaan sii hubsiyey confirm gareysto in suuqan uu suuq uptrend yahay halkan fursad kale iga muuqato oo ayadana macquul noqon kardho fursadaas waxa weeye saa u jeedno baashaan halkan low time frame oo kale hadaa meeshaan fursad ka arki lahayd
halkan oo kale marka haddii halkan oo kale entry noogu soo noqoto waa entry haddii kalena dhiman lahays okay waxba nagama cararayan anaga waana horta aamintaa inaysa waxba kaa cararin horta waana ogtahay suuqu hadduu ku siiyana wuu ku siiyey hadduusan ku siinna dee dhima lahan wax maarad kaa cararay ma jirto maasha allah suuqa wuu dhaqaaqay marka halkan waa ninku dhahay entry noqon karaa lacag sababtoo ah halkan waa meeshii u dambeysay oo suuqa nastay masar uu diray structureka yarka uu jabsaday say u egtahay hadda tirirka noocaas u qaadanayo hadda isna 20 ka dhig 20 okay tirirkiisa meel fog ma geynaye farha warhaya inaa xataa asna fix u qaadatid oo realistic aa noqotid suuqa ma aha inaad iska dhaqaaqi karaa iyo aad ahayd marka hadda farha war brick of structure uu sameeyey suuqaana weli waa uptrend waa suuq fursado buy ah leh insha allah fursadaha noocan oo kale seelasha noocan oo kale ah sida ama kan oo kale maaha kan oo kale iyo hadda kan soo noqonaya seelba meeshan kasoo noqonaya seelka meeshan kasoo noqonaya oo kale sida looga faa'iidaysto ayadan insha allah cashir kale ka sameynaya saaxiibayaal waxaan rajeynaya insha allah wax in intriga iyo maaragta waxa qaadanaysid ama waxa ku tiragelinaysid inaa simple as you can ka dhigtid inaa wax fudud ka dhigtid ama santii saaxiibayaal soo dhawaada insha allah binal kareem waxaan rajeynaynaa videogan wax uun ka faa'iiday insha allah khayr badan baan rajeynaa